aan eego warbixinaha dhinaca diblomaasiyadda caalamka oo dhan ee marka horeysa ku bilaabay sanadkan ugu horeysiiyo muslimiinta waddanka Kenya ayaa sheegay in ay u ururiyeen lacag ay ugu talagaleen in Ciid al-Adxada loo qalo ama loo sameeyo dadka qase ee gaajaysan. muslimiinta ayaa sheegay in lacag gaaraysa 5.4 milyan oo lacagta Kenya ay u ururiyeen dadka muslimiintaas taasoo ay ugu talagaleen in dadka qase ku dhaqan loogu qalo hilibka. واحد لو يقنا spirit headed أو مسوق لو يقنا the voice for Palestine أيه وحي شغال مساجك جامعة ماسك مساجك جامعة وجوه مجالات نيروبي برتمها مجالات كوية لا إن المسلمين تكين يعرفون تاسع كل هذين القصة الشيء ينقدك وذاتها وجميعها إمامية the council of imams and preachers of Kenya أيه شغال إن أي تم أي سمعين tan maaha oo kaliya in aan dadka gaajaysan lagu qoodanayo laakiin sidoo kale waa in suurtaagno inaan isgarab taagno kana hornimaano cadaalad darrada iyo xasuuqa dadka ka dhanka ayuu yiri Axmed Shariif oo ah gudoomiyaha ahna markaas qofka gudoomiye ururka loo yaqaan the chairperson of Voice of Palestine wuxuuna sheegay in campaign-ka ololuhu uu sii socdo dowladda Mareykanka madaxweynaha Donald Trump ayaa soo saaray go'aan oo ku sheegay in wadamada caalamka qaarkood laga joojiyay inay soo galaan dalka Mareykanka ayadoo marmarsiyan uu ka dambeeyay ninkii ku tuuray markaasi bambada si la sheegayo gobolka Denver loo yaqaan gobolka Denver magaalada Denver oo gobolka Colorado magaalo ku taala ayaa waxa uu Donald Trump uu sheegay in go'aankan uu saameyn doono 12 dalal gaari wadamada waxa loo kala qaybiyay qaar la mamnuucay dadkooda inay waddanka Mareykanka soo galaan iyo kuwo gabi ahaanba la sheegay in la soo taagi doono oo cadaadis la saari doono haddaba 12 dal ayaa ah kuwa la mamnuucay waxaana kala yihiin wadamada Afghanistan dalka Myanmar oo horey loogu yaqaanay Burma Chad Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo Equatorial Guinea waddanka Eritrea Haiti Iran Libya iyo Soomaaliya Sudan iyo Yemen haddaba wadamadan ayaa muwaadiniintoodu aysan imaan karaynin waddanka Mareykanka laakiin tafaasiil dheeraad ah ayaa la sameeyay wadamo kale ayaa iyagana dadka qaarkood la diidi doona ama si gaar ah loo cadaadi doona waxaana kamid ah wadamada Burundi Cuba Laos Sierra Leone Togo Turkmenistan iyo dalka Venezuela ayaana kamid ah wadamada iyagana la beegsaday haddaba plan eego wadamadan dowladda Mareykanka sababta ay ugu soo gabatay weerarkii loo yaqaanay inta inuu ahaa weerar anti-Semitic attack ah oo Boulder ka dhacay deegaanka Boulder ee gobolka Colorado ayaa lala xiriiriyay qadiyada madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in isagoo raba in uu fuliyo in ka hortagga wuxuu ugu yeeray abaabulayaasha iyo dadka isoo abaabulay ama isoo markaasi isoo biirsaday ay ka hortagayaan iyo wuxuu ugu yeeray atoorayaal khatar ah oo dalka Mareykanka amnigiisa qaranka ku khatar wasoo dalka u dhigay wuxuu sheegay kuwaas inay doonayaan dalka Mareykanka ay dhibaato geliyaan wasoo dalka u dhigay dadka noocyadan oo kale ah waxaan saaranaa inay iskaga qabanno ayuu yiri hoggaan qaarkoodna waxaan marin doonaa hanaanka fiisaha ee fiisaha loogu diiday iyo kuwa kale in aynu iska qabanno dalka Mareykanka aynu xaqiijino amnigiisa ayuu yiri waxa uu sheegay in arrintan ay u muuqato mar ka dambaysa mid uu doonayo in wadamada qaarkood ay ku soo biiraan ayuu yiri kuwa Mareykanka la doonayo laga amaan geliyo waa in Mareykanka laga dhigaa wadan amaana ayuu hadalkiisa ku soo gabagabeeyay markii uu gabi'ama u saxay waxa uu sheegay in 9ka bisha June marka ay saacadu tahay 12 iyo 1 daqiiqo ay qaraarku uu gabi'aanba u hirgalayo tusaalahan qofka doonaya maanta haysta fiise ee Mareykanka doonaya inuu aado waa inuu baxaa hadeerto hadii kale 12ka habeenimo 9ka bisha June markay saacadu isbedesho qof dadkan kamid ah oo soo gali kara ma jiro haddaba waxaa la sheegay in arrintan ay ku jirto wax loo yaqaano markaasi jeerdhaaf ayaa la sameeyay inkastoo jeerdhaafka wadamada gabi ahaanba loo sameeyay ay kamid ka yihiin wadamada Soomaaliya iyo wadanka loo yaqaan Afghanistan oo kale iyo Iraq ayaa kamid ah wadamada markaas jeerdhaafka loo sameeyay kastoo Iraq ay ku jiray liiska hore haddana dadkeeda ayaa soo hosgelaya maadaama dadkeeda category-ga ay qayb ka yihiin gaar ahaan dadka loo yaqaan dadka dawladda u shaqeeya waxaa jira dad wadamadan ka howlgala sida Soomaaliya Suudaan ka howlgala Iraq ka howlgala Afghanistan ka howlgala Liibiya jooga oo dawladda Mareykanka u shaqeeya basaasiin أنا أساسا أقرتيته because وحلا يريد ذاتك الدولة كهيستا كونتراكتيدا إيه ودمادن أودا شيء قف ودن كان أودا شيء سوماليا تشوجا أو عن شرعي هيسن مريكنا أو ده طبعا ذلك مريكا عن على شك هيسن أو هذا الدولة مريكا وشقية والله يلي شرع فلسطينية
dadkaas uma anagu oran karaa dadka noocaas oo kala dadka Mareykanka u shaqeeya la dhihi karaa marka oo wadamadan oo kale maaha Soomaaliya kaliya wax u gaara oo wadamada oo dhan baliiska ku jirta sidoo kale waxaa la sheegay in dadka haysta baa la yidhi deganaanshaha dalka Mareykanka ee wadamadan u dhashay aysan arrintan saameey doonin ee Soomaalidu ay ku jirto qofka marka aanu qofku waa Soomaali hadduu haysto xataa green card wali waxa tahay jinsiyadda waa Soomaali sida daraadeed ma saameyn doonto oo qofka haysta permitka residentiga ma saameyn doonto ama Afghanistan u dhalo 12 dalba u dhalo ma saameyn doonto ayaa la yiri sidoo kale waxa la yiri waxaysan saameyn doonin ayaa la dadka fiisayaasha gaarka la sii doono waxayna ka dabacsan tahay ayaa la talaabooyinka kuwii hore sidoo kale waxaysan saameyn doonin dad yooga kale ee ay u socoto ama dadka eheladoodu sida hadda fahamku yahay dadka eheladooda doonaya inay keenaan ee muwaadiniinta tusaale ahaan ilmahaaga ayaa rabtaa inaad keento adoo ah citizen Mareykan ama citizen oo dhalasho citizen haysta ayaa rabtaa inaad keento kuma saameynayso waxaysan kaloo saameyn doonin ayaa la yiri dadka gaarka ah ee sida xaasaska iyo qoysaska ayaa la aaminsan yahay sida ay sheegayaan qaar kamid ah markaasi dadka aad ku fahmi macnaheedu waxa weeye ama ay sheegayaan qaar kamid ah sharci loo yarada ama qareenada inkastoo wali fasiraad ay socoto go'aan cusub uu yahay maalmaha soo socda dawladdu ay faahfaahinayso way dawladdu waxay samaysaa revision bay ku samaysaa qoraalada markii doonto ayay dib u celi kartaa sida doonto ayay ka yeeri kartaa maadaama madaxweynuhu conceptiga saxeexay mar hadduu madaxweynuhu aragtida oo dhan saxeexay dadkiina la yidhi waa la mamnuucay waxay ku xidhnaa doontaa dawladda iyo sida ay u kala faahfaahiso hadhowta qoraalada laakiinse waxa ay dawladda Mareykanku ay sheegtay inaysan arrintan saameyn doonin dadka qaarkood oo aysan taaba doonin tusaale ahaan waa dadka loo dacwoonayo isinka xaaskiisa soo dacwoonaya dadka visa applicant-ka loo yaqaano sidoo kale waxaysan saameyn doonin dadka dawladda u shaqeeya sida diblomaasiyiinta Soomaalida ah ee fiisayaasha Mareykanka haysta ma saameyn doonto iyaduna sida ay dawladda Mareykanku ay sheegtay aan ku ogaanay ama ku fasirnay tusaale ahaan dadka xildhibaanada ee Mareykanka taga wasiirada dawladda xubnaha dawladda way tagi karaan dalka Mareykanka waxaysan kaloo saameyn doonin dadka ka shaqeeya arrimaha bini'aadanimada iyo dadka xuquuqda insaanka iyo arrimaha noocaas oo kale ka shaqeeya ayaa la yiri iyaguna ma saameyn doonto sadalka loo dhigay gaashaanbuurta NATO waxay u muuqataa in ay gabagabeynayso shirkeeda isla markaana waxay ka hadlayaan in ay ballaarinayaan diyaargarowga dagaalka iyo qorshayaasha dagaalka dawladda Jarmalka dawladaha la riixayo ayaa kamid tahay la doonaya inay 5% lacag ay ku bixiyaan 5% macnaha waxa weeye wax soo saarka guud ee dalka oo taasoo ka dhigaysa in la laba jibaaro wax soo saarka dhismaha dhinaca dhaqaalaha waxa kaloo dawladda qiimaha leh wararka ay sheegayaan in dalka Shiinahu uu ka badiyo wadamada sida aadka u xoogan hadeerta u dareensan in dhibaatooyin isaga gaar u ah lagu soo duuduucayo ama lagu soo markaas wado waxay u muuqataa in dhibaatooyinka ay dawladda dalka Jarmalku ay ka tabanayso sida aadka u xoogan ay ugu aragto inay tahay mid lama horaan ay tahay in laga hortago ay ka mid tahay ama ay ugu waaweyn tahay ayaa la yiri diyaargarowga wadamada reer Yurub ee ayagu raba in ay Mareykanka gariga raba ay ku qasbanaadaan sida daraadeedna ay la falgalaan Mareykanku inkastoo gaashaanbuurta NATO uu sandan iyo hela kala hayn Yurubna uu dhabarka ka jabiyay una qabatayno dadbanna uu saaray maadaama alaabahoodii ay suuqyada Mareykanka keeni jireen uu ku dabaqay 50% waxyaalaha u dhigmaya 50% wax ka sareeya haddana dawladda dalka Shiinaha ayaa doonaysa dadka inay hagaajiso qaar ka mid ah cilaaqaadka wadamada Shiinaha ayaa ugu baaqay ama ugu yeeray dawladda cusub ee madaxweynaha sida la yaab kale ku soo baxay ee waddanka Koonfurta Kooriya inuu ka dhabeeyo ballanqaadkiisa ku aadanaa inuu hagaajinayo cilaaqaadka Shiinaha waxaa fariin loo diray madaxweyne Lee Chang-myon kaasoo la yiri hadda waxaad bilaabaysaa 5 sano ee madaxweynaadkaaga sidaa daraadeedna waxaan rabnaa in aad 5 sanadood ee madaxweynaadkaaga aad bilaabayso ay noqoto koo muhiim ah waxaan rabnaa in ay dawladda dalka Shiinaha ay ku ballan qaado in cilaaqaadka labada dal uu noqdo dhif wadaag waxa si dheeraad ah in dawladda Shiinaha ay diyaar la tahay in cilaaqaadkeena uu ahaado mid ka mid ahaanba danaha labada dal laga hormariyo danaha waddan saddexaad taasoo ay dawladda dalka Shiinaha ay u dhaxmarinayso in ay leedahay wadamo kale danahooda hamari waxay ku tilmaantay in arrimaha noocan oo kale aysan hayn haba yaraatee wax la aqbali karo ama la qaadan karo waxa Lin loogula taliyay in uu qaado talaabooyin dhowr ah ayay yiri Lin Jian afyeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Shiinaha isagoo ka hadlayay dawladda dalka Shiinaha ayuu sheegay in dawladda Shiinaha sidoo kale ay doonayso in waddanka Koonfurta Kooriya uu iska saaro ciidanka Mareykanka ee gaadhaya 2028,500 ee askari ciidankaasi loogama baahna gobolka waana ku dheeraad sidoo kalena looma baahna inay waqtigan ay noqdaan kuwa ku sii dhaxmilma ayaa gobolka dawladda dalka Shiinaha
shiinaha ayaa sheegtay in haddii arrimahaas oo dhan ay dhacaan ay ballanqaad aad u xoogan ay dhici doonto shiinuhu mar walba wuxuu kasoo horjeedaa in dhinacyada wadamada aan dariska nahay ay qaataan ayaa la siyaasado lasoo waariday sool waxaynu ka rajaynaynaa inay kor u qaado cilaaqaad wada heshiis iyo in labada dal ay noqdaan dalal walaala ah oo saaxiibaa ayaa lagu yiri hadalkan ayaa u eg talooyin aad u xoogan oo la siinayay madaxweyne Lee Chang-myon ayaa bari ugu dambeeyay oo dhan waxa uu ku ololeeyay in dalka shiinaha iyo dalka waqooyiga Korea labada uu cilaaqaad wanaagsan uu ka raadin doono isagoo diiday dhammaan siyaasadihii ku aadanaa in hubka nukliyeerka ah lagu ilaaliyo ee Mareykanku uu leeyahay dalka koonfurta Korea shiinaha ayaa haatan waxay doonayaan in ay qaadaan tallaabooyin dhowr ah dowladda koonfurta Korea tusaanahan koonfurta Korea waxay qaadi kartaa dhowr tallaabo ay ka mid ka tahay yareynta saameynta Mareykanka iyo joogitaanka ciidankiisa qoomara saldhigyada aad u xoogan halkaas ku leh Mareykanku waxa uu sheegaa in ciidamadu halkaas ay u joogaan inay dhowraan indhaayaan isla markaana ay difaacaan dalka koonfurta Korea laakiin dhawaan Mareykanku wuxuu keenay dhowr shuruudood oo ay ka mid tahay mid madaxweyne Donald Trump iska soo jaray taasoo ahayd in koonfurta Korea ay bixiso lacag aad u xoogan Japan hadeerto madaxweynaha dalka Mareykanka wuxuu ku amray in ay wax ka bixiso hanaanka difaaca dalka Mareykanka loo bixiyay the Golden Dome kaasoo ah mid lagu difaaci doono dalweynaha Mareykanka oo soo dalka dhigay afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda dalka Shiinaha ayaa sheegay in habdhaqanka oo dhan lagu bedeli karo hal shay taasoo ah in siyaasadaha shisheeyaha laga soo guuro dhinaca kalena madaxweynaha cusub ee koonfurta Korea ayaa qaaday tallaabooyin degdeg ah tallaabooyinka uu qaaday waxaa ka mid ah inuu celiyay laba xubnood oo loo magacaabay maxkamadda sare kuwaas oo sharci darro ahaa ama maxkamadda dastuuriga sidoo kale waxa uu sheegay in la soo celi doono sarreynta sharciga iyo awood siinta dastuurka madaxweynaha ayaa ku ololeeyay markii horeba in uu dastuurkii la baabiyay ee dalka iyo khilaafkii wadanka uu dhayi doono sidoo kale wuxuu sheegay in dib u heshiisiin loo furayo dhinacyada siyaasadda oo dhan wuxuuna ku dhawaaqay in la cafinayo dhammaan dadka oo dhan laakiinse waxa uu ka digay in dastuurka dalka aan la geli karin khalkhal taasoo ah ayuu yiri in kalsoonida ay dadku isku qabaan iyo in wax la isku dhiibto oo dad wax loo dhiibto ama qolo wax loo dhiibto ama magaalo wax loo dhiibto ama mas'uul wax loo dhiibto haddii dastuurka la taabto ay noqonaysaa ayuu yiri qadaf aad u xoogan oo laga soo kaban Yoon Suk Yeol ayaa dhinaca kale waxa uu sheegay in ay tahay tani talaabo aad u xoogan oo qaaday Yoon Suk Yeol waa madaxweynihii hore wuxuuna si dadban ugu cambaareeyay inuu ahaa tallaabadaas inuu ka fiirsado laakiin wuxuu sheegay in dadku iska daayaan in wax la isla daba heetiyo oo bedelka la qaato tallaabooyin kale oo muhiim ah oo ay ka mid ka tahay ayuu yiri iscafiska iyo hor socodka iyo midaynta dadka inta hadhay ayani labada Kongo ee dalka Mareykanku uu saaray cunaqabataynta ayaa buuq aad xoogan oo ka dhashay waxaana marka dowladda Mareykanku ay qortay dalka Congo kaliya laakiin dad badan waxay u qaateen xataa wararkiina hore waxaan u qaadnay dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo ay ahayd xataa dadka ku sugan magaalada Kinshasa caasimadda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo ayaa markii ay maqleen Congo inay ku jirto liiska dalalka uu saameeyay mamnuucitaanka socdaalka Mareykanka ayaa kuwa badani u qaateen darbo in ay iyaga saameysay waxaa seekada laga xaqiijisay in mamnuucitaanka ay saameysay dowladda Mareykanku ay tahay dalka Jamhuuriyadda dalka Congo Brazzaville ee jaarka la isla dalka Congo ee uu dhaxeeyo webiga Congo DR Congo ayaa dal ahaan weyn waxaana saddex jibaar balac leegtahay galbeedka Yurub dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo waxaana uu inta badan uu ku jiraa warbaahinta oo ka hadasha dagaalada kooxaha hubeysan ay ka wadaan dalkaasi loo yaqaan Congo Brazzaville ay tahay dal yar oo hase yeeshee waxaa degan labada dalkan faqiirka ee Congo Brazzaville laakiin dalkii deganaa ayaa la saaray cunaqabataynta ama dadkooda laga mamnuucay sida ay wararku ay sheegayaan madaxweynaha Mareykanka ayaana sheegay in sababaha dadajiyay in dadka dalalkan la soo saaro arrintan go'aamo noocan laga qaado ay tahay ayaa la yiri weerarkii ka dhacay Boulder oo markaas nin Masri oo geystay laakiin sidee dalkii Masar ee ninkan ka soo jeeday lama saarin ama liiska kuma jiro waa arrimaha iska marsiyaha la yiraahdo uma baahnin iyaga ayuu yiri Trump isagoo inta ku daray in ay aaminsan yahay in Mareykanku uusan lahaan karin socdaal furan oo dal kasta oo aynan u awoodin si badbaado ah oo lagu kalsoonaan karo oo ay baaritaan lagu sameyn karo qof walba ayuu yiri si kastaba ha noqotee wararka wacala dhinaca diblomaasiyadda dunida oo dhan ayaa waxaa ka mid ah hadallada Ibrahim Traoré ninka loo yaqaano ee dalka la yiraahdo Burkina Faso ayaa warar cusub ka soo duulay horta waxay idin sheegayaan wadanka Burkina Faso hogaamiyaha wararka laga faafiyo badankooda waa been bartaan aan ku sameeyay waxaan ogaaday waliba kuwa Soomaalidu faafiso 98% waa been sida diyaaradu sameeyay baabuur buu samaystay kan buu sameeyay wadanka waxa soo sameeyay waxyaalaha ugu badan ee beenta ah la sameeyo waay
waxaana ninkan dacyada aad u badan oo been ayaa laga sameeyey isaguna de inuu raalli ka yahay anigu ma ogiyen kale laakiin kolleyba warar badan oo been ayaa dhacay laakiin ninkani talada wuxuu la wareegay bishii September 2022 markaas uu riday Paul Henry Dambiba oo ku eedeeyay inuu ku fashilmay arrimihii badnaanta u lahaa dalka isla markaana uu dayacay dagaalkii ka dhanka argagixisada xilligaas ka dambeeyay wuxuu ku soo baxay hogaamiye laga jecel yahay dalkaas iyo dacalada Afrika inkastoo dad badan ay warar been abuur sameeyeen hadda waxaa bilowday dad badan oo fact checking sameeya hadda waxaa la sheegay inuu sameynayo dhowr arrimood oo ay kamid tahay xor ma ahaan karno inta aan guntanhay dhar aan dhaxalayna aan ka dhaxlay gumaysigan aan xiranno wuxuu sheegay in warshado la sameeyo doono dhawaan waxa la u jeediyay bishii November 2023 ayaa ahaa hadallada ugu badan ee la rogay Afrika ma xoroobi karto inta Afrikaanku ay ka cabsanayaan inay reer galbeedka runtii wajiga ka saaraan hadalladaas ayaa kamid ah marka la eego hadallada hadaba laasiga ah gudaha wadanka Burkina Faso ilaa hadeerto horumar weyn oo dhinaca dhaqaalaha kama jiro dawladda Mareykanka dalka Mareykanka dhawaan waxa la sheegay in laga hirgelin doono diyaarado guuxooda ka dheereeya 10 jibaar oo loo yaqaano supersonic sida ay wararka sheegayaan shirkadaha dalka Mareykanka ayaa doonaya in ay gabi ahaanba ay hirgeliyaan qorshaha loo yaqaano Concorde supersonic plane taasoo la aaminsan in qorshahan gabi ahaanba uu bilowday 2003 laakiin la daahiyay waxaana la sheegay in ay tani noqotay kadib markii la sheegay in ay keeni karto diyaaradani dhibaatooyin dhinaca caafimaadka oo ay ka mid tahay pollution ama wax loo yaqaano ku daafadaynta caalamka iyo codka oo markaasi magaalooyinka markay kor marayso dadka qaarkood masqaxda wax uu ka yeeli karo maadaama codku uu gabi ahaanba yahay mid aad u dheer sida wararku ay sheegayaan laakiinse Colorado Boom Supersonic shirkadda loo yaqaano ayaa sheegtay in ay tani muhiim u tahay shaqooyinka dadka isla markaana sanadkan ay noqdaan sanadkii la sameeyay arintaasi dad badan ayaa doonaya in ay soo shaqeeyaan isla markaana ay ku soo noqdaan magaalooyinka ay degan yihiin dadku waxay u baahan yihiin inay shaqeystaan kadibna ay soo laabtaan waxay u baahan yihiin haddana inay shaqeystaan oo ay guryahooda ku soo laabtaan iyagoo waqti isa ka laayacmay waxaana tan loo arkaa hanaan aad u xooggan diyaaradahani waa diyaarado loogu talagalay in 10 daqiiqo ilaa 15 daqiiqo ay u kala socdaan magaalooyinka waaweyn ee Mareykanka ee loo kala socdo 5 ilaa 4 saacadood iyo qaarkood loo kala socdo 2 saacadood iyo qaar loo socdo saacad iyo jarjar tani waxay ka dhigan tahay marka in qaarkood 10 daqiiqo 15 daqiiqo ilaa 25 daqiiqo gudahood loo kala socdo taasoo ka dhigan in qofku uu caadi ugu shaqo tago meel kale kadibna uu soo noqdo overturn ayaa ka mid ah shirkadaha markaas hadeerta diyaarka u ah inay arrintan sameeyaan gaanka dalka Vietnam ayaa ku dhawaaqay inuu joojiyay siyaasadii loo yaqaanay siyaasadda labada cunug ee loo yaqaanay two child limit policy oo ahayd in dadka ay laba cunug kaliya yeeshaan kadib markii la sheegay in taranta adduunka iyo dadka isbacsanaya iyo dabargo'a laga baqayo in dadka uu gaaro ay soo tarayso sida ay dawladda Vietnam ay ku dhawaaqday haatan waxaa la qaaday sheekadii loo yaqaanay sheekada dhalmada ama waxa loo fertility rate-ka oo la joojinayo hadeer iyo wixii ka dameeya in dadka qoysaska lagu amro in laba cunug ay dhalaan wasiirka caafimaadka Dow Hon Lan ayaa sheegay in dadku ay dhali karaan wuxuu ugu yeeray caruur badan waayo waxa sii gaboobaya dadkuna aad ay sii gaboobayaan hadeerto 100 milyan ayaa dalka Vietnam dadkooda lagu qiyaasaa laakiin si caruurta ayaa ku yar oo dadka ayaa u badan dad waaweyn dadka ayaa u badan dad 60 ay ka sii weyn taasoo ka dhigatay ayaa la yiri in ay loo arko markaasi in ay dadku ay sii gaboobayaan wadamada qaarkood ayaa hadeerto mar ka dambaysa waxay u arkaan in ay dabar go'ayaan hadii aan la sameeynin ayaa la talaabooyin degdeg dalka Suuriya xukuumaddiisa ayaa waxa ay ku dhawaaqday in gabi ahaanba ay gacanta ka saari doonto dhammaan warshadaha ay burburisay Israa'iil iyo kuwa kale aysan burburin qaramada midoobay hay'adda u qaabsan hubka nukliyeerka si loo baabi'iyo waxa ka haray qalabka iyo agabka yaala warshadihii kiimikada ee waddanka Suuriya madaxweynaha maamulka Suuriya ninka Ahmed Al-Sharac oo soo dhaweeyay ninka hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan basaasida hubka nukliyeerka wadamada islaamka kaliya ka shaqeeya dabagala Rafael Grossi ayaa tagay magaalada Dimashq waxaana lagu wareejiyay furayaasha xarumaha oo dhan waxaana ay sheegtay in dawladda dalka Suuriya iyadoo doonaysa inay noqoto dawlad hub la'aan isla markaana ay la mid noqoto maamulka Falastiin iyo maamulada kale ee sida waddanka loo yaqaan Lebanon oo kale iyo waxyaalaha noocaas oo kale ayaa la sheegay in ay hadal isku dhiibeen the International Atomic Energy Agency ayaa dhawaan waxay istagaaleen dalka Iran oo ay si xun u wada hadleen kadib markii Iran ay ku eedeysay in ay tahay hay'ad
u shaqeysa wadamada reer galbeedka oo aysan hayn hay'ad qaramada midoobay u shaqeysa laakiin ay tahay hay'ad basaasad ah oo siyaasadda dhun dhex qaada sida ay wararku sheegayaan haatan waxaa lagu qiyaasayaa in arrintan ay noqoto tallaabooyin aad iyo aad u xoogan oo dhali kara ayaa la yidhi mar kale baa la yidhi in xukuumadda ka dhalatay Dimashq ay tahay dad iyo shaqaale abaabulan oo la soo dirsaday wadanka Suuriya ayaa gabi ahaanba hubka dhigis ballaaran waxaa ku sameeyay sida muuqata Israa'iil oo baabisay hubkii iyo saanadiisii oo dhan dowladaha reer Yurub ayaa iyaguna cambaareeyay isku day ay ku tilmaameen dowladda Shiinaha ay ku doonayso mar kale inay kaligeed ay qaadato inta badan alaabaha muhiimka ah iyo macdanaha loo yaqaano the rare earth minerals taasoo ay sheegeen in wadamada ugu badan ay hadeerta la wareegayso iyadoo la sheegay in Shiinuhu uu sii ballaarinayo barnaamijyada qaarkood ayaa madaxa arrimaha dhinaca ganacsiga midowga Yurub Moros Sefcovic waxa uu sheegay in midowga Yurub ay u arkaan dalka Shiinaha inay sameynayaan quduucnimo aad iyo aad u xoogan iyo inay kaligood ay doonayso in ay la wareegto hanaanka dhinaca dhaqaalaha ee caalamka isla markaana ay rabto in ay la wareegto arrimahaas dalka Shiinaha ayaa la ogaaday in Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo iyo wadamo kale oo Trapera uu la wareegay بريء وجود مي معدن قديستو ده وقبل عران كان هنتن تكنولوجيات وقدرت أهل السوق دليل لكن زي ما دام مريكان وقعان صدي إن الدنيا ده وفرح كقاعدة أو سوق سيسير وقبحه وحايد يوروبيان كو أي شيء إن السيدو كلا إسويدين كلي أي مدن تاي لأن عكنا وحال الشيء إن دولة الشيء هدر تيدون زين صار تو ديارات كفانا ده ديارات ده ترك مريكان كو سمية إلو يقان F-35 تازول أمسي إن معدن تن مهم وتاي معدن تن أيال أمسي إن دولة الشيء هذا كعن تقول لكتو sidoo kale ay dhalid doonto ayaa leeyahay hanaan diyaar garow iyo tartan aad u weyn oo Mareykanka iyo dalalka reer Yurub qabsada Yurub ayaa hadarta aflabada yaadhay waxayna u aragtaa arrintan inay tahay duulaan aad u xoogan oo lagu soo qaaday kolka ay noqoto ayaa leeyahay hanaankeeda dhinaca cishimaysiga suuqyada waaweyn wadamada reer Yurub waxa ay diidan yihiin iyagu in laga tago dalka in laga tago dalalka reer Yurub dalalka reer Afrika oo ay dhowr jeer ay sheegeen in yihiin dalal dihin laakiin madaxweynaha dalka Mareykanka Trump ayaa asagu ogolayn haba yaraatee in wadamadaasi ay noqdaan kuwo ayagu markaasi loo xidhnaado ama se loo markaashiinaha ay markaasi loo xiro adduunka oo dhan ama kaligii Shiinuhu oo noqdo wadanka adduunka ka macaasha dowladda dalka Shiinaha ayaa sheegtay dhowr jeer kuna celcelisay in macdanta ay kaligeed ay qodo doonto isla markaana ay qaado doonto ayaa leeyahay gaar ahaan wax laga hadlayo macdan qodista iyo sidoo kale gurashada macdanaha adduunka ee caalamka sida weyn loo isticmaalo hadaba macdantani maxay tahay maxaa laga sameeyaa macdantani waa waxyaalaha ugu badan ee laga isticmaalo ama loo isticmaalo sanada teknolojiyada hubka diyaaradaha telefoonada baytariyada agabyada kale teknolojiga iyo waxyaalo kale dawooyinka ay kamid ka tahay waana mid kamid ah kuwa ugu waaweyn ee la aaminsan in Soomaaliya ku jiraan ku buuxan gaar ahaan gobolada Bari Sool gobolada Sanaag iyo qaybo badan oo kamid ah inta u dhaxaysa gobolada Togdheer iyo waxa la yiraahdaa Sanaag iyagana way ka buuxdaa sida la aaminsan كلبيلك وركوا على دين عدرسات الدنيا دولان دواشنا قسمها بدن قضبك وجودها ما هي قيبتن كتجي مدحنا طلع مريكا Trump أيام أرين كلا ولا جاي عاوي كنا واقعي ما عليه بمالك كده ما يسمى متكو له أيو قاعدة تلابونه وحاول شيء إن الله سماه دونا سركال جارة أو بارد دونا إن مدحوني دلك مريكا كحكومي يسوي ثلاثة كلا وريجي ومية قبيين كلا وحلوه يا الشكل هذا كوجنيتيف أما كوجنيتيف وحلي هذا إيش investigation أي على سماه ديفيد وارينغتون ayaa loo magacaabay inuu noqdo qofka hawshaasi hogaami doona waxaan ugu tilmaamay in David Warrington uu noqon doono ninka ugu badan ee arrinta gacanta ku hay doona arrintan waxay ka dhigan tahay in madaxweynaha dalka Mareykanka uu aaminsan yahay in madaxweynihiisa secretary kala wareegay uusan haynin caafimaad qaba sidaa daraadeedna la baaro dhammaan talabooyinkii uu qaaday oo dhan si looga noqdo dibna loo saxo inuu ahaa nin fiican iyo in kale waxayna tani tahay gabi ila sheegay madaxweynaha dalka Mareykanka maskaxiyan gaar ahaan qaybta maskaxda qaybta lagu fakariyo qaybta go'aamada saxda qaadata inay ahayd mid fiican iyo mid kale inkastoo arrintan ay tahay arrin aad iyo aad u qaraadh haddana waxaa lagu tilmaamay in ay tahay mid kale oo muujinaysa kala duwanaanshaha iyo aragtida cadaawadeed ee labada xisbi inay sii fogaa doonto waxaana dad badan ay ku tilmaameen tan inaysan waxba ka tari doonin isku soo dhaweynta Mareykanka shacbiyan iyo sidoo kale siyaasiyan laakiin se kor u sii qaadi doonto arrin shakhsiyadeed iyo in madaxweynaha caafimaadkiisa oo hadeerta iska baxun in lagu sii cadaadsado oo lagu sii carar lagu sii markaasi tiqtiqsado muujinayso arkiwaa iyo sidoo kale xishmad darro u dhaxaysa laba nin oo talada dalka isku wareejiyay